Israa'iil hadda waxa ay la kulmaysaa cadaadis kaga imaanaya dalal ku yaala Yurub kadib markii dhowr dal oo ku yaala Yurub ay soo jeediyeen in gabi ahaanba midowga Yurub uu xiriirka u jari doono maamulka Israa'iil. Haddaba soo jeedinta ay sameeyeen dalalkaasi maxay ku saleeyeen maxayse tahay sababta ay u doonayaan oo ay ugu ololeynayaan in gabi ahaanba xiriirka loo jaro maamulkan Israa'iil oo garabka weyn ka haysta Mareykanka. Warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa sababta dalalkaasi ay dabada ugu riixayaan in xiriirka loo jaro maamulka Israa'iil. Dalalka Spain, Slovenia iyo Ireland ayaa maanta si wada jir ah u shaaciyay dadaal diblomaasiyadeed oo ay ku doonayaan in midowga Yurub uu dib u eego isla markaana uga baxo ama hakiyo dhammaan heshiisyada iskaashiga ee uu la leeyahay Israa'iil iyadoo la tixraacayo walaacyo isa soo taraya oo ku saabsan xaaladda bini'aadamnimo iyo ku dhaqanka sharciga caalamiga ah. Qoraal ay si wada jir ah u soo saareen saddexdan dal ayaa lagu sheegay in talaabadan ay ka dhalatay baahi degdeg ah oo loo qabo in la waafajiyo siyaasadda dibadda ee midowga Yurub mabaadi'da uu ku dhisan yahay, gaar ahaan ilaalinta xuquuqda aadanaha, sharciga caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka si nabad ah. Wasiirada arrimaha dibadda dalalka Spain, Slovenia iyo Ireland ayaa sheegay in heshiisyada iskaashi ee u dhaxeeya Yurub iyo Israa'iil oo ay ku jiraan iskaashiga ganacsiga, cilmi baarista iyo iskaashiga siyaasadeed ay u baahan yihiin dib u eegis qoto dheer si loo qiimeeyo in ay weli waafaqsan yihiin qiyamka midowga Yurub. Midowga Yurub ma sii wadi karo xiriir iskaashi oo buuxa iyadoo ay jiraan eedeymo culus oo la xiriira jabinta xuquuqda aadanaha ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen saddexdan dal. Sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu yiri waxaa laga maarmaan ah in la muujiyo mowqif midaysan oo ku saleysan mas'uuliyad iyo daahfurnaan. Dalalkan ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqeen saddex qodob oo kala ah in si degdeg ah loo sameeyo qiimeyn sharci ah iyo mid siyaasadeed oo ku saabsan heshiiska Yurub iyo Israa'iil, iyo in la hakiyo heshiisyada qaar inta ay socoto qiimeyntu, iyo ugu dambeyntii in la kordhiyo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xaqiijinayo xasilooni waarta iyo ilaalinta shacabka rayidka ah. Waxaa intaa dheer, bayaanka ayaa ku booriyay hay-adaha midowga Yurub in ay hormuud ka noqdaan wada hadallada midaysan oo arrimahan ku saabsan isla markaana ay la tashadaan dhammaan wadamada xubnaha ka ah si loo gaaro go'aan wada jir ah. Talaabadan ayaa la filayaa inay dhaliso dood ballaaran oo gudaha midowga Yurub ah, maadaama wadamada xubnaha ka ahi ay ku kala aragti duwan yihiin xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil. Qaar ka mid ah wadamada ayaa hore u muujiyay taageero xooggan oo ku aadan sii wadida iskaashiga ee ay la leeyihiin Israa'iil, halka kuwa kale ay dalbanayaan cadaadis dheeraad ah oo diblomaasiyadeed. Si kastaba ha ahaatee, dalalka Spain, Slovenia iyo Ireland ayaa muujiyay go'aan cad oo ay ku riixayaan arrintan, iyagoo tilmaamay in midnimada iyo kalsoonida midowga Yurub ay ku xiran tahay sida uu uga jawaabo xaaladaha caalamiga ah ee u baahan ficil degdeg ah. Warkan ka soo baxay saddexdan dal ayaa imaanaya xilli xiisadda bariga dhexe ay sare u kacayaan, iyadoo indhaha caalamka ay ku sii jeedaan doorka midowga Yurub ee xal u helidda xaaladahan ka taagan bariga dhexe.